السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب قالي ولالكي مeel walba aad joogtid ku soo dhawow YouTube channel-kayga. Magacayga waa Camir Maxamed Roble. Halkaad iga daawanayso waa Camir Roble channel. Saaxiib waxaan rabaa maanta inaan idinkaga sheekeeyo sheeko aad iyo aad u qurux badan, sheeko kala kacsan, sheeko dhaaftay. Sheekadani waxaan u bixinaynaa jaceylkii lama arkaanka. Horay waxyaabo badan waan ugu soo sheekeynay, laakiin maanta waxaan ka sheekeynaynaa qiso jaceyl, qiso dhacday. qisadani waxaan kasoo akhristay book maxaan iraahdaa qisadani waxay ku dhacday family u dhashay wadanka DR Congo, horeyna loo aqoon jiray Zaire. qisadani waxay dhacday xilligii gumeysiga, xilligii Afrikaanta la adoonsan jiray ayay dhacday qisadani. family ayaa waxaa Mareykanka uu ka waday wadanka DR Congo, wuxuuna u waday adoonsi ahaan. waxaa la geeyay wadanka Mareykanka gobol kamid ah, waxaa lagu faran jiray beerihii, wax walba ayaa lagu qabsan jiray, tacadiyo kala duwan waa loo geysan jiray. familkii hooyo iyo aabba ayay ka koobnaayeen. hooyadii ayaa waxaa kusoo baxay uur, waqti kadibna way dhashay, waxay dhashay wiil. wiilkii waxay u bixiyeen George ayaa loo bixiyay. George waxa uu ku dhashay wadanka Mareykanka. dowladda Mareykankana waxa ay u aqoonsatay inuu yahay nin Mareykan ah, xaqna uu u leeyahay inuu waxbarasho helo. wiilkii markii uu garasho yeeshtay kadib waxaa waxbarasho loo geeyay iskuul ku yaalay gobolkiisa ayaa waxbarasho loo geeyay. kadib maxaa dhacay? kadib wiilkii wuxuu ku soo baxay wiil aad iyo aad u fircoon, wiil waxbarashada ku wanaagsan, wiil dadaal badan, wiil maasha Allah ah, wiil ay ku faanaan iskuulka ayuu ku soo baxay. dadaalkiisii dheeraa kadib wiilkii waxa uu galay kaalintii koobaad sanadkiisii ugu horeeyay. dowladda wiilkii waxay ka codsatay wax ay abaalmarin uga dhigayso. kadib waxa uu codsaday in hooyadii shaqadii beeraha dhibaatada badneed in looga fariisiyo. sidii ayaa la sameeyay, waa laga fariisiyay. wiilkii waxbarashadiisii dadaalkiisii meeshii ayuu kasii waday. sanadkiisa labaad ayuu haddana wuxuu galiyay kaalinta koobaad. aabihiis ayaa laga fariisiyay shaqadii dhibaatada badneed iyo adoonsigii. kadib waxaa la siiyay shaqo iyo guri. halkaasi ayay ku wada noolaayeen familkii, hooyadii, aabihii iyo wiilkii intaba. wiilkii waxa uu sii waday dadaalkiisii iyo waxbarashadiisii. wiilkii wuxuu kusoo baxay wiil active ah. waxa uu ka gudbay dugsigii hoose ayuu ka gudbay, isagoo runtii iskuulka aad looga jecel yahay, tartamada lagu faano, meel walbana loo wadan jiray. markii iskuulka la u baxayo waa la wadan jiray. wuxuu ahaa leaderka iskuulka. markii uu dhameeyay dugsigii hoose, markii uu dhameeyay wuxuu u gudbay dugsigii dhexe. dugsigii dhexe markii loo gudbiyay kadib ayuu wuxuu la kulmay tacadiyo aad iyo aad u xun. waxaa lagu sameeyay jinsi faquuq, waxaa ku xadgudbay macallimiintii, waxaa ku xadgudbay ardaydii. wiilkii aad buu ku rafaaday iskuulka, mar walba waa lagu xadgudbaa. waxaa laga sheegaa jinsigiisa, waa la caayaa, waa la takooraa, macallimiintii way takooraan, imtixaanadii waa lagu ridaa. wiilkii aad buu u rafaaday. kadib waxa uu goostay inuu ka wareegsado iskuulkii. waxa uu tagay maamulihii uu u tagay, wuu ka diiday inuu iskuulka ka wareejiyo. kadib dadaalkiisii dheeraa kadib wuxuu ka gudbay dugsigii dhexe ayuu ka gudbay. markii uu ka gudbay dugsigii dhexe waxaa loo wareejiyay dugsigii sare oo ku yaalay isagana meel kale. markii uu dugsigii sare tagay ayuu wuxuu la kulmay wuxuu meesha ku yeeshay asxaab aad iyo aad u fiican, macallimiin tayo leh, intaba wuu ku yeeshtay. runtii aad bay isku fahmeen. dadaalkiisii meesha ayuu kasii waday, kaalimo badan ayuu geliyay, abaalmarino kala duwan wuu ku guuleystay. waxa uu ka gudbay dugsigii sare ayuu ka gudbay, waxa uu u gudbay jaamacaddii. waxaa loo wareejiyay magaalada New York, jaamacad ku taalay ayuu waxbarasho ka helay. markii uu meesha tagay kadib wuxuu la kulmay wax cajiib ah. runtii wax cajiib ah ayuu la kulmay. markii uu warqadii uu ka qaatay iskuulkii, shahaadadii dugsigii sare iyo warqadii jaamacaddii lagu fariisanayay, waxa uu tagay jaamacaddii. maamulihii ayuu la kulmay, si wanaagsan ayaa loo soo dhaweeyay. waxaa la geeyay fasal kamid ah fasalada jaamacadda. fasalka waxaa fadhiyo dad wada cadaan ah, wax madow ah ee dhigtay jaamacadda ma jiro.
xataa eriyada xataa wax madow ma joogo, ninka kaliya madowga waa asaga. Ardayda dhigtaan jaamacadda horay uma aysan arag qof madow. Markii uu fasalka soo galay kadib ayaa waxaa booday oo qaylisay gabar ka mid ah gabdhihii jaamacadda dhiganayay. Ayaa intay qaylisay ayay booday, ayaa waxay tiri waa bahal iga qabta. Waxay la yaabtay ay ka fajacday cunugani midabkiisa iyo qaabkiisa, maxaa yeelay horay umaysan arag wiil Afrikaan ah. Gabadhii way suuxday. Gabadhii waxaa loo wacay ambalaas, waa la qaaday isbitaalkii ayaa la geeyay. Kadib waxaa ka fariistay macallimiintii iskuulkii waxaa laga yeeli lahaa wiilkani George oo doonaya runtii inuu wax barto ahna wiil wanaagsan. Macallimiintii qaar ayaa waxa ay go'aamiyeen in laga raacdeeyo jaamacaddii lana aqbalin. Qaarna waxay dhaheen wiilka waa wiil wanaagsan, wax qalada uu leeyahayna ma jirto, waa in uu dhigtaa jaamacadda. Sidaas darteed waxaa yimid gabadha aabaheed wuxuu ahaa nin maalqabeen ah, nin lacag badan leh, nin dowladda Mareykanka runtii si wanaagsan ay u qadariyaan maamul ahaanba. Marka wuxuu dhahay waxaan ahay nin Mareykan dhalada ah, gabadheedana waa gabar Mareykan ah. Mana doonayo in gabadheyda waxbarashada ay ka fariisato, waa in cunugaasi laga buriyaa waxbarashada. Markii uu go'aankaasi u gaaray kadib, maamulkii iskuulkii way fikireen. Kadib waxaa go'aan lagu gaaray in George la daboolo asaga dhan. Markii uu jaamacadda dhiganayo in asaga loo geliyo qandi ilaa iyo wajiga ah ay indhaha meel yar kaliya ay ka bannaan yihiin. Wiilkii markii loo soo jeediyay way ku adkaatay runtii, haddana wuxuu rabaa inuu wax barto, dadaalkiisina uu sii wado. Wiilkii wuu ogolaaday. Maalin walba markii iskuulka uu imaanayo, albaabka markuu imaado qandigaasi ayuu gashtaa, fasalka ayuu fariistaa isagoo sidaas u cabursan. Waxbarashadiisa ayuu dhigtaa, kadib wuu ka tagaa. Waxbarashadiisa ayuu dhigtaa, kadib wuu ka tagaa. Maalmaha ayadana ay jaamacadda ka maqan tahay, dharka wuu iska dhigi jiray isagoo caadi ah ayuu dhigan jiray. Wuxuu sidaasi ku socdo. Wiilkii runtii wuxuu dhibsaday geedka qandiga ahaa ee ku daboolnaa ayuu dhibsaday. Inuu wax bartana wuu doonayaa, haddana wadada kaliya u furan waxay tahay in geedkaasi uu u xirnaado ilaa ay wajiga u daboolnaado, indhaha kaliya ay u furnaadaan. Wuu ku rafaaday. Kadib waxa uu goostay runtii inuu waxbarashadii ayuu nacayay. Waxbarashadii wuxuu isku dayay inuu ka tago, haddana wuxuu arkaa familkiisii dhibaatadii ay ka soo baxeen iyo rafaadkii ay soo mareen. Wuxuu doonayaa inuu familkiisii wax u qabto, noloshiisana uu horumar gaarsiiyo hadda iyo talo. Wiilkii waxa uu goostay inuu gabadhii mashquuliyo. Wiilkii wuxuu ahaa wiil caqli badan runtii, aadna u fikirayo. Wuxuu aaday suuqii, wuxuu soo gatay taybkii wax lagu qori jiray. Markaas maysan jirin computer iyo maysan jirin teknolojiyadan iyo horumarkan maysan jirin. Waqtigaas wax lagu qori jiray tayb. Wuxuu soo gatay tayb iyo warqado hal design hal naqshad gooni ah leh ayuu soo gatay. Markii uu soo gatay, wuxuu soo ogaaday gabadhii meesha ay degan tahay, boostadeeda. Gabadhu waa gabar taajirad ah, waa gabar lacag leh. Waxay jaamacadda ku leedahay post office, ay jaamacadda ku leedahay magaaladana post office ay ku leedahay. Gurigeeda agtiisana waxay ku leedahay post office. Post office waxaa la meesha warqadaha fariimaha lagu rido ayaa la dhahaa. Meesha ayuu ku riday. Marka wuxuu bilaabay inuu qoro warqadiisii ugu horeysay oo ahayd runtii warqad jacayl ah uu u qorayo gabadhaas. Warqadii jacaylka ah ayuu qoray, warqad runtii ay ku qoran yihiin erayo aad iyo aad u macaan badan, erayo qurux badan ayuu warqadii ku qoray. Markii uu qoray kadib waxa uu sameeyay, wuxuu ku riday baqshad. Warqadii ma lahan magac, kuma yaalo ciwaan lagala soo xiriirina kuma yaalo. Wuxuu ku riday warqadii post office-ka ay jaamacadda ku leedahay. Markii uu ku riday kadib
waxa uu soo fariistay fasalkii. Markii uu soo fariistay fasalkii waxyar kadib gabadhii waxaa u imaaday warqadii fasalkeeda ayay ugu imaaday. Xisada inta lagu jiray ayuu arkay gabadhii inay warqadii u imaaday, si fiican ayuu u eegay. Gabadhii warqadii ayay kala furtay, waxaaba ku qoran erayo cajiib ah, erayo runtii aad iyo aad u macaan badan, erayo qofka bedeli kara dareemihiisa. Gabadhii waxa ay bilowday inay fasalka ka baxdo, ay banaanka ay aado. Tani waa ciyaar bilowgeeda. Gabadhii warqadii ayay la dhacday, warqadii ayay akhrisatay. Warqadii waxay fiirisay qofka soo qoray ciwaanba kuma qorna, wax ku qoran oo ciwaan ah ma lahan warqadii. Way yaabtay. Kadib maalintaasi sidaas ayay ku dhamaatay. Maalintii labaad ayuu haddana warqad u qoray. Kadib wuxuu dhigay boosto ku taalo magaalada dhexdeeda. Boostadii isla sidii waxay ugu imaaday jaamacaddii. Gabadhii waxay dalbatay cudurdaar, waxay macalimadii ka codsatay xisadii ku jirtay inay baxdo. Waxay sheegatay inay xanuunsan tahay, ay doonayso inay dhakhtar aado. Macalimadii way ka ogolaatay. Warqadii ayay rabtaa inay akhrisato, maxaa yeelay waxay ku aragtay erayo aad iyo aad u macaan badan. Warqadii ayay akhrisatay. Warqadii markii ay dhammaysatay kadib waxay fiirisay address-kii iyo qofkii soo diray. Magacna kuma qorno, address-na kuma qorno. Wiilkii wuxuu sii waday warqadihii badnaa uu qori jiray. Mar wuxuu dhigaa jaamacadda, mar wuxuu dhigaa magaalada, mar wuxuu dhigaa boosto gurigeeda agteeda ku taalay. Gabadhii warqado ayaa waxay ku noqdeen sida roobka oo kale. Warqad. Gabadhii meel ay u raadisay ma lahan. Gabadhii waxay ka mashquushay waxbarashadii. Jaamacaddii way ka mashquushay. Maalin way imaanaysaa, maalin ma imaanayso. Asagana wuxuu u arkay fursad. Maalintii iyada ay maqan tahay, qandiga ayuu iska dhigay, waxbarashadiisa ayuu wadayay. Maalinta ay imaadana geedii ayuu xiranay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa jaamacadda waxaa imaaday aabaheed. Gabadha aabaheed ayaa imaaday. Wiilkii wuxuu arkay wiilkii oo aanan xirnayn, qandigii aanan xirnayn. Kadib wiilkii ayuu aflagaadeeyay. Wuxuu ku dhuftay buug uu gacanta ku hayay ayuu wiilkii ku dhuftay. Si xun ayuu u aflagaadeeyay. Wiilkii waxa uu goostay inuu ka cadgoosto aabihii iyo gabadhii dhibaatadani u geystay. Wiilkii wuxuu sii waday warqadihii. Warqadihii ayuu sii waday. Gabadhii heer ay waxay gaartay ay jeclaato runtii qof aysan arkaynin, qof aysan aqaanin magaciisa, qof sawirkiisa aysan aqaanin. Warqado kaliya iska socdo, ciwaan aan lahayn, address aanan lahayn, waxba aanan lahayn. Gabadhii way yaabtay. Waxay samayso ayay garan weysay. Runtii. Meel ay kala xiriirto ma lahan, waxay samayso ma lahan. Gabadhii way daciiftay. Way niyad jabtay. Gabadhii waxaa galay jacayl aydan ogeyn qof ay u qaaday. Subax walba warqad ayaa u timaado, habeenkii warqad ayaa u timaado, galabtii warqad ayaa u timaado. Waxaa ku qoran erayo cajabiyay, erayo aad iyo aad u macaan badan, haddana aysan haynin qofkii iska lahaa. Gabadhii way fajacday. Waxay samayso ayay garan weyday. Kadib waxay istaagtay mimbarka jaamacadda. Stage-ka waxaa laga soo jeediyay jaamacadda, ardayda dhan oo wada fadhiyaan ayay istaagtay. Markaas bay waxay tiri, waxaan doonayaa inaan ogaado qofka warqadaha ii soo qora inuu soo istaago stage-kani. Stage-kan ayaan doonayaa. Wax u soo istaago way weyday. Kadib wuxuu u qoray warqad oo dhahaya waxaan doonayaa inaan kula kulmo. Wuxuu ku balamiyay meel ka mid ah magaalada ayuu ku balamiyay. Markii uu meeshii ku balamiyay, gabadhii way imaaday, asaga muusan imaanin. Kadib haddana warqadihii ayaa socday. Warqadihii sida roobkii ayay gabadhii ku noqdeen. Gabadhii way fajacday.
way la yaabtay runtii sheekada meesha ka socota. Waxay jeclaatay qof aysan aqaanin, qof aysan weligeed aynan arkin, qof magaciisa aysan aqaanin ayay waxay u qaaday jacayl. Runtii jacaylka wuu xanuun badan yahay sida aan maqaalo ku hayno. Gabadhii way yaabtay, waxay sameydo ayay garan weyday. Kadib waxay u tagtay aabaheed ay la tashatay. Waxay tiri, aabe, waxaa i galay jacayl, waxaan jeclaaday wiil, mana aqaano meel uu joogo. Mar walba warqadahan ayuu ii soo diraa, mana la arko. Aabihii wuu ka diiday, wuxuu dhahay waxbarashadaadi wado, markaad waxbarashada dhammaysatay kadib ayaan wada raadinaynaa wiilkaasi. Gabadhii waxay isku dayday inay waxbarashadeeda wadato, laakiin way awoodi weyday. Maxaa yeelay waxaa ka tambadiyey waxa ka dhex guuxayo. Su'aalaha mar walba nafsadeeda weydiinayaan ayay wax jawaab ah u weysay. Qofna ma hayso, jacaylna wuu hayaa. Gabadhii way yaabtay. Aabaheed wuxuu ahaa fanaan caan ah ee laga yaqaano wadanka Mareykanka. Kadib wuxuu u qoray warqad uu ku dhahayo, maxaan idhaahdaa, aabahaaga meelaha lagu heeso meel ka mid ah ha ku qabto barnaamij hees ah, fan ah. Adiga waxaad fadhiisataa kursiga 10aad, kursiga 11aad anigaa soo fadhiisanayo. Gabadhii aabaheed ayay ka codsatay inuu barnaamij fan ah u qabto. Barnaamijkii ayaa la qabtay. Maxaan idhaahdaa, kursiga 10aad ayay fadhiisatay, 11aad wuu banaanaa iyadoo u kariisnaa. Wiilasha qaar ayaa kusoo qaldamaya fadhiisanayay, midka kusoo qaldamaba way qabsataa. Markaas buu dhahaa, aniga ma ahan. Mid kala imaanaya wuu fadhiistaa, markaasay dhahdaa, aniga. Gabadhii way wareertay. Aabihii wuxuu kala garan waayay inuu la qabsado muusiga ka socdo masraxa iyo inuu gabadhiisa fiiriyo. Wuxuu sameeyo ayuu garan waayay. Kadib heestii ayuu joojiyay, showgiina wuu kansalay. Gabadhii ayuu wuxuu ka waday wadanka, ayuu ka waday waxa uu geeyay Mareykanka, wuxuu geeyay Ingiriiska. Dhaqaatiir kala duwan ayuu u geeyay. Marka mid walba loo geeyay wuxuu dhahay, waxaad u geysaa dhakhtarka cilmi nafsiga. Waxaa loo geeyay dhakhtarkii cilmi nafsiga. Dhakhtarkii wuxuu dhahay, waxaad ii imaadaa 1 isbuuc kadib. Ii imaaw. Isbuuc kadib wuu ku soo noqday. Markii uu ku soo noqday isbuuc kadib, aan iraahday isbuucii, gabadhii ninkii dhakhtarka wuxuu sameeyay meel ayuu seexiyay. Markii uu seexiyay kadib wuxuu ag dhigay rikoor. Marka mar walba ay hurdayso way qarwaysaa, waxay dhahaysaa, aaway, kuma arko, inteed joogtaa, inteed iga jirtaa, magacaaga ma aqaano, wejigaaga ma aqaano, aad baan kuu danaynayaa, waan ku doonayaa, ku aaway. Markii uu isbuucii dhan duubayay, markaasuu wuxuu dhahay, gabadhaada wax cudur ah ay haaya ma jiro. Waxa haya gabadhaadu waa jacayl. Qofka ay jeceshahana ma taqaano. Haddaysan helin qofka ay jeceshahay, nolosheeda khatar ayay ku jirtaa. Aabihii gabadhii wuu soo celiyay. Maalmo badan ayuu ka maqnaa jaamacaddii. Gabadhii wiilkii fursad ayuu u arkay. Qamdigii uu ku jiray wuu iska siibay, waxbarashadiisii iyo dadaalkiisii ayuu horay u sii watay. Markii uu horay u sii watay, aabihii ayaa imaaday jaamacaddii. Fasal walba ayuu istaagay. Wuxuuna ka codsaday inuu arko wiilka gabadhiisa warqadaha u soo qora, uuna doonayo inuu u guuriyo. Wuxuu fasaladii soo tiriyaba, waxa uu imaaday fasalkii George. Waxaa kursiga hore fadhiya George. Isla sidii ayuu ku sameeyay, wuu aflagaadeeyay. Ardada fasalka ayuu si kale ula hadlay, kadib wuu iska baxyay. Wiilkii waxa uu meesha ka sii waday dhibaatadii, warqadihii badnaa ee uu u qorayay gabadhii. Gabadha waa gabar aad u qurux badan. Gabadha waa gabar fan ah. Sheekadiisii meeshii ayay ka sii socotay. Warqad ayuu diraa, warqad kale ayuu diraa, warqad kale ayuu diraa. Ciwaan ma lahan, address ma lahan, wax ay leedahay ma lahan.
waxaa soo dhawaaday waqtigii la xiri lahaa jaamacadda ay u dhammaan lahayd ardadii jaamacadda. Gabadhii wax badan ayay jaamacadda ka maqnayd maadaama uu dhalay nin taajir ah. Ardaydii gabadhii macallimiinta ayaa u qiimeeyey, marka waxaana la dhahay way ka qayb qaadanaysaa qalinjabinta maadaama ay xanuunsaneyd. Markii qalinjabinta ay soo dhawaatay, aabihii ayaa istaagay, waxa uu tagay mid ka mid ah telefishinada waddanka ayuu barnaamij ku qabtay oo uu saxaafadana isugu yeeray. Kadib wuu hadlay, wuxuu ka sheekeeyey gabadhiisa sida uu u jecel yahay iyo horumarka uu gaaray inuu u gaaray gabadhiisa darteeda. Ninka waa nin lacag leh, gabadhiisana waxay jeceshahay ninaysan weligeed aysan arkin. Kadib waxa uu ballan qaaday haddii uu imaado wiilka inuu u guurinayo gabadha shuruud la-aan, uuna siinayo lacag $100,000 ah. Runtii waxay noqotay fursad. Wuxuu shuruud ka dhigay inuu keeno wiilka qofka gabadha guursanayo, inuu keeno warqadihii naqshada warqadaha iyo taybkii wax uu ku qori jiray inuu horey usoo qaato. Kadib waxaa la gaaray maalintii qalinjabintii ayaa la gaaray. Xafladii waa la wada buuxaa, aad baa loo buuxaa. George wuu imaaday. George wuxuu wataa boorso ay ku jiraan taybkii iyo warqadihii uu gabadhii u diri jiray koobigooda, macnaha originaalkooda. Wuxuu diri jiray koobiga, originaalkana wuu reeban jiray. Kadib waxa uu sameeyey, xafladii ayaa bilaabatay, dad badan ayaa ka hadlay. Waxaa meesha kasoo qayb galay baadarigii kaniisadda ayaa kasoo qayb galay, asagaa khudbado badan jeediyey. Kadib waxaa istaagay gabadha aabaheed, markaasuu wuxuu dhahay waxaan doonayaa wiilkii aan ka sheegay saxaafadda hortooda, wiilkaasi hadduu imaado gabadhayda waan siinayaa. Gabadhii aad bay u dharareysaa runtii inuu imaado. Wuxuu ballan qaaday lacag $100,000 ah iyo inuu gabadha siinayo haddii uu imaado, maxaa yeelay gabadhiisa nolosheeda ayaa khatar ku jiro. Waxaa haya jacayl aanan la arkaynin, jacayl magaciisa aanan la aqaanin, jacayl address aan laga haynin, jacayl lagu wareeray runtii. Xafladii markay siday u socotaba waxaa la gaaray gunaanudkii. Waxaa istaagay maamulihii iskuulka, wuxuu dhahay gabadhan wiilka warqadaha usoo qori jiray aad bay u jeceshahay, waana la siinayaa, cid dambi u haysatana ma jirto, ha imaado. Kadib ha istaaga ayuu dhahay. Kadib waxaa istaagay George. Markii uu istaagay George, maamulihii iskuulka ayaa ku qeeliyay, waryaa George, waa inaad fariisataa, waa maxay anshaxumada aad ku dhaqmayso? Markii uu fariistay kadib, haddana mar kale ayuu dhahay ha istaago. Wiilkii gabadhii warqadaha usoo qori jiray ay u qabtay jaceylka waalida ah. Gabadha waxay jeclaatay wiilkii, ay dhahday waa waraaba, haliga celiyo, iyada darteeda loo geliyay qandigii. Mana taqaana wejigiisa maxaa dhici doona. Gabadhii waxay istaagtay masraxa iyadoo ooynaysa, kana codsanaysa inuu soo istaago wiilka. Haddana mar kale waxaa istaagay George. Maamulihii iskuulka ayaa ku qeeliyay oo dhahay fariiso. Waxaa soo istaagay baadarigii kaniisadda, markaabuu wuxuu dhahayay waa inuu soo istaagaa wiilka. Haddana waxaa istaagay George. Maamulihii ayaa ku qeeliyay fariiso dhahay. Waxaa istaagay mid ka mid ah macallimiintii hore ee George wax usoo dhigi jiray dugsigiisa hoose oo meesha lagu casuumay. Markaasuu wuxuu dhahay ha istaago wiilka, xataa hadduu doono ha ahaado George. Waxaa istaagay George. George maanta wuu libisan yahay, suud qurux badan ayuu wataa. Markii uu soo fuulay mimbarkii ayaa runtii waxa uu furay boorsadiisa. Waxa uu daadiyay warqadihii uu soo qori jiray originaalkooda iyo keyboardkii uu wax ku qori jiray. Gabadhii maysan hubsan
maysan fiirin inuu yahay George in kale. Gabadhii way isku duubtay wiilkii sidan oo kale laabta ayay gelisay. Meesha waxaa ka dhacay waxyaabo aan la filaynin runtii. Sheekadaasi marka ay dhacday kadib waxaa bastoolad iska soo jaray aabihii dhalay gabadha. Waxa uu u diidayaa wiilka weli ilaan wiilka waa Afrikaan, waa wiil madow ah. Haddana gabadhii way jeclaatay. Wiilkii maysan fiirin inuu madow yahay, inuu yahay ma fiirin. Kadib markii waqti dheer ay qaadatay kadib markii ninkii bastooladii uu iska soo jaray, waxaa qabtay baadarigii kaniisadda ayaa bastoolada ka qabtay. Dharbaaxsho ayaa lagu fidiyay. Waxaa la dhahay hor istaagin jaceylka waa wax jiro, waa wax cajiib ah. Maxaa yeelay gabadhiisa waxay jeclaatay qof aysan weligiis eedan arkin. Saaxiibayaal, haddii aad la socotaan sheekadani, ma kula tahay adiga qof aadan weligaa aadan arkin inaad jeclaanayso ama aad u qaadayso jecel waali ah? Gabadhii iyo George way isguursadeen. Markii ay isguursadeen kadib waxa uu qaatay wiilkii lacagtii $100,000 ee uu aabihii ballan qaaday uu qaatay. Gabar qurux badanna wuu helay, jaamacaddiina wuu dhameeyay. Markaani waa dhakhtar George. Kadib waxa uu sameeyay, waxa uu kasoo tagay wadanka Mareykanka. Waxa uu wareegsaday wadankiisii oo uu kasoo jeeday aabihii iyo hooyadii ayuu u wareegsaday. Meesha ayuu ka dhisay isbitaal aad iyo aad u qurux badan. Wuxuu noqday dhakhtar u adeega dadka u dhashay wadanka Congo. Dadka masaakiinta ah ayuu mar walba wax u qaban jiray. Kadib hooyadii ayuu soo watay, aabihiina meesha ayuu ka shaqayn jiray. Kadib waxaa dhacay dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa dhacay. Aabihii waxa uu ku jiray dadkii la qafaalay ee la geliyay dagaalkii koowaad ee adduunka. Wiilkii isagoo dhakhtar ah ayuu wuxuu tagay wadanka Ingiriiska ayuu tagay. Markii isbitaal meesha ku yaala ayuu wuxuu ka daweynayo dhaawacyadii iyo wixii isagoo ka daweynayo ayuu wuxuu dhaawacyadii mid ka mid ah ku arkay aabihii. Wuu qabtay, wuu daaweeyay. Markii uu badbaadiyay kadib wuxuu u soo dhaafay aabihii wuu soo waday, wuxuu u soo dhaafay wadanka Zaire. George gabadhii cadaanka ahayd ee u dhalatay wadanka Mareykanka oo uu dhalay fanaankii caanka ahaa ee reer Mareykan, waxay u dhashay 2 wiil ayay u dhashay. Noloshoodiina waxay ku idlaatay wadanka Zaire ayay ku idlaatay. Ilaa waqti dambe meesha ayay ku noolaayeen. Sheekadii intaas ayay ku eg tahay. Asxaabtayda qaaliga waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan. Haddii sheekadan aad la dhacday, commentiga aad ku soo qorto. Waxaan jeclahay runtii inaan sheekooyin badan aan soo bandhigo. Haddii sheekadan aad ka heshaan, commentina aad soo qortaan, subscribe-na aad saartaan haddii aad channelka ku cusub tahay. Haddii aadan ku cusubeen, like saar oo aad horey asxaabtayda uga mid ahayd. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. saaxiib ku soo dhawow channelkayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.